Anoo ku bilaabay magacayga Habi Maxamed waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dhibaatooyinkii jirdilkii xumaa ee xalan soo gaaray ee foosho xumaa anagoo run ahaantii faraxsan oo ku faraxsan 18 May xuskii inaan xusno calankayga quruxda badan leh aan aad iyo aad ka u jecelnahay horta saas ay aad inoo suurtagal weeday waxay noqotay dhalinyarta maxay tolay reer Banaadir namba reer Muqdisho wayna la dabaaldegayeen inuu gala faraxsanaayeen saas ay ahaatee walagu horiyimi waxa ku horiyimi ciidanka farmaajo oo ciidan uu soo diray oo markaas gadaal uu ku soo diray markii horena loo ogolaaday hadana bacdi gadaal uu ku soo diray markaas anagu waxaan ku balansaneen ilaa hotel inaan macnaha ku qabsano xalfad oo aan waqti ku qaadano farxad joog ku qaadano kabacdi saas ay aad wana laga qasay anagoo qarash soo gelinay soo dhisnay macnaha u soo diyaar garoonay farxad inaan qaadanayno calankayga quruxda badan leh aan jecelnahay oo ku soo libisanay saas ay ahaatee askartii waxaan kala kulanay inay calankii quruxda badnaa ee tawxiidka ku qornaa xitaa kama xishoonin way ku joogsadeen hortayada ay ku tuureen macnaha way ku tunteen oo kaandarka aan xidhnayn istaanta noo aan xidhnayn heer ay gaadheen waan ka bixinay halkaas isku qaawinaysa saas ahaa waan iska dhaafay kabacdi markaan qaawinaysa aan ku dhahay waan macnaha maxay tolay adee dharkii aan iska xidhnaaday kama bixin karaan markaas meeshii baa aaday oo waxaan ku dhahay xagan galiya heer waxay sameeyeen intay soo halka ay ku soo mareen dhan qof Soomaaliland meesha ma joogi karo macnaha wixii Soomaaliland guryahooda ku laabteen markaas anigu waan diiday mana laabanaya ku dhahay inay maxna halkaas aan joogaya xeebtida si joog ku qaadanaya hada farxad iyo joogi kale ay ka qasteen saasaan ku dhahay way diideen macnaha qoriba ay soo qaateen xitaa ay ugu fureen ay ku dhahay waan ka dhex saaraynaa meesha calanka ku sidatay maxaad nooysa af Soomaali aad u khaldan oo aan ka sheegi karin oo wallahi markaan soo xasuusto ay xitaa ii cabaysteen qoriga oo kugu dhufanayna macnaha anigu waxa dhahay markaas calankayga quruxda badan leh hadii aan u dhimanayo igu dhufta baan ku yiri kan ma bixinayo waan ku dhimanayaa baan idhi oo ku dhimanaya ma bixinayo laakiin kan watay aan gacmaha ku watay way iga qaadeen ki dharka ay ahaa bas baa ay soo hadhay kaasna way anigoo hadana si kasta ii galayaan way ugu joogjoogsadeen kii kala dhulka ku daadiyeen marka wallahi xalay wuxuu igu dhacay ma ilaabin aad baan ugu waxa saa noo galayna farmaajo wuxuu soo diray oo ka dambeeyay bay ahayd anaga macnaha madaxda hawiye xitaa qayb bay naga lahayd ma sha Allah si wanaagsan bay noogu hambalyeynayeen alxamdulillah waan taageersanahay anagu hadaan dhalinyarta reer Soomaaliland boo shacabka reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliland halkan jooga aan nahay waxaan macnaha hadii arinteeda laga hadli waayo ambaba raali gelin laga bixin waayo garab baan muujinayna waan isku tagaynaa wadankoodana waan uga baxaynaa hadii saan noqoto macnaha fahanteen markaas banaan wax baa sameeynaa ambaba wadankooda uga baxaynaa wadankayga quruxda badnaaba ku laabanayna run ahaantii aad baan u xareysanay wallahi maanta waan salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga horta magacaygu waa Sharmaaka Salaamaan Cali waxaan halkan ka muujinayaa ama halkan aan ka cadeynayaa warbaahinta madaxa bannaan aan u sheegaya wixii xalay tolina soo gaadhay anagoo diyaarsan farxadeeda noo gaarka waxa wadankan aan la nimi dadku hadday wadaagayaan waxa weeyaan wixii dadku ay wadaagayaan in la isku tixgeliyo anagu dawladii hore iyo dawladda nimanka qiimeynteedu isugu mid noomaha sababtoo wixii xalay nagu dhacay baa noo cadeynay inaan isku mid ahayn taa waxa keenayna waanu aragnaabo xalay anagoo farxadeeda u diyaar garoonay horena u qabsan jirnay nimankana haddaan warwar qabno nin og in dhibaato soo gaadhayso dhib ma doonaya oo maya jawaabto waxa weeyaan haddaan meesha anagu dhib ka ognay qofna dhibaato cagiisa kuma doonto meesha waxa ka dhacay wax aad u cajiib badan feer jilib jaqel qori dabadii waxa nalagala xishooday may jirin anuu qadiyadeeda iyo qarannimadeeda aan muujinay garbahan oo dhan baa nalaga jijibiyay haddaan ragnay dumarkana maryaha lagala baxay nalagama xishoon waa lagu joogjoogsaday calankii iyo wixii aanu sidanay iyo tawxiidkiina dhulka la galay marka anagu qadiyadeedii qarannimada